wixii anigu dee adduunyada aan la soo maray aan la noolaa unbaan wax ka yartaa taaban waayo waayeelku inuu wax uga tago caruurtiisii iyo dadka generationka ee soo socda inuu wax uga tago ayuu daw ay tahay marka waxyaalo yaryaroodan ka sheekeynay horta anyway dad badan ma sugayo anigu din inaan gadaal baa laga daawan doonaa videogayge waan anigu waan iska bilaabi anigu 3-4 qof hadday soo galaan doesn't matter waxaan sugayo oon ay lacag iga soo galayso ma jirtee horta waxaan ku dhaawacmay maalin dhaweed on facebooka aan arkay inaan way taabtay yarkaasi inaan qalbiga hadda ka ooyay magaciisa garan maaye inaan reer Djibouti oo dhalado oo dhibta maanta ka socota oo Ismaaciil Cumar geysanayo dalka ka geysanayo lilmeynayay توحيدنا قبسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر تاوهي إله نقبو شيطانك إله نقبو إله وهنتنا وللمناي أيا ما ندوي فيسبوك عن كاركي بلدلين ارتهار كابي تاقيهين maantana waxaan ka arkay inaan xaafadihii balbala soo duubay noloshoodii soo duubay oo laga iri kaarfootaagii albaabada garaaca la idhi oo ka hadlayay qalbi ilaahay siiyo ku soo tuuray facebooka ku soo tuuray hadduu ninkani shaydaan ahayn oo aalad shaydaane ay ku jirin codkiisan uu soo maalintii dhaweed BBC-da uu la hadlay ee beenta midhan ahayd hadda beenta midhan ahayd codkiisu ina yaroo hadlaaya oo dootamaya oo been iska cadi bankaa soo dhigay ayuu u ekaa dee muuqaalkiisana waad aragtay siduu u egyahay marka ninkan aalad shaydaan aalad bini aadamaha waxa ku dhex jira iga qaata aalad bini aadam haddii ay ku jirto naxariis iyo maqashoon tahay iyo kalgacayl yar iyo dib u noqod ayuu yeelan lahaa Ismaaciil Cumari marka aalad shaydaan oo waji shaydaana iyo maskax shaydaana oo ummadda reer Djibouti lagu eegayo oo naloo soo diray dhowr iyo 20 sanadoodba weeyaan war maxaanu geysanay waxaanu geysanay anu reer Djibouti waxay geysteen baan doonayaa min 77 ilaa hadda dad iska gacmo furan oo uga sara kacayay sariirta cadeerka uu leeyahay maqashoonta qariibka uga sara kacayay baan ahayna maxaanu geysanay waxaanu geysanay baan wali aan isweydiinayaa oo nalagu cadaabayaa wallahi inaan cadaab lahayn oo waxa weeyaan ummad kasiba ifka lagu cadaabaa oo waxaan lagu cadaabayaa xukunka Ismaaciil iyo usradda uu abuurtay shawaadinta
ka ugu yarow dhalay iyo ta uu qabo waa ummad maqashoonta adduunyo kale ku nool marka cadaabtu ugu horreeya waa iyaka cadaab annaka nooma hadhin ya iyo kulaal cotton degreeya biyo xumi iyo nafaqo xumi intaba ilaahay waa intuu nagu eegaye anu adkaysanno cadaab dambe nooma hadhin annaka والله reer Jabuuti cadaab dambe uu hadhay ma jiro inta Ismaaciil nagu filan bal waa kaase albaabadii balbalu garaacayaayo la qaadi kari laayaho lagu soo tuuray banka social media lagu soo tuuray ya oo qasab u soo baxo noo footeeyo la leeyahay war ayuu la dhiganayaa annagu waxaan doonaynaa dadka uu la dhiganayo majuud baa meesha shawaadiin buu la dhiganayaa kale ma isaga iska dhaadhicinaya mise ummad buu ka dhaadhicinayaa inuu sax ku joogo ummaddu aragtay waagii hore wuxuu ku marsisiyoonayay dhammaad nabad baan hayaadii dhammaad maxaa banka u soo baxay bal waxa banka u soo baxay riwaayadda dhammaadkayga waa la gartaaye banka maxaa u soo baxay ilan waa yeeli maanta ma raacayo albaabkuu garaacaya albaab kaleba ma raacayo noloshuu ku nool yahay buu garanayaa xabadda fantalataarku ya ee uu sito iyo xabadda lambada uu sito waa 10,000 oo faran iyo 15,000 oo faran lacagtii jeebkiisa ayuu marna qasarro ku dhisanayaa marna dad dalka u dhalan ya u hamari iyo magashoon tahay diyaarada uu iibinayaa balbalana waa taa dhimanaysa dadkii dalka u dhashay waa kaa baaba'ay marka wuxuu ka dhaadhicinayo dad buu la dhiganayaadani ma waa shawaadiin baa jirta annagu ma arkayna dadku la dhiganayo waa dadkee waa ummadee bal waa ayo waxaana ka soo daalnay adduunyada ka soo daashay waxa ugu dambaysay marka waa caruur yar kelmadda uu ku hadlayo oo dhani maanta ilmo yar kuma hadlo war waa laga badu baxay isma leh ilaa shaydaanku marbuu ilaahay indhaha qabtaa oo maqashoon tahay adduunyada ya kii dhibaataysanaa indhaha u furaa waa caalim alquluub khalaas buu idhahaa addoonkaygii indhaha aan xidhay maantaan u furayaa te waa maalintii waxaanu joognee waxa weeyaan saabaan haynaa xaguu wadaa sidee u socotaa ya annakaa isweydiinayna baashu xaggay ka socotaa war ma dhammaan waa soota dhammaatay maxaa jira
marka taa Ismaaciili waxa weeyaan waqti yar baa noo hadhay waa saacad socota imika markii hore waa imtixaan annaka lagu eegay oo reer Djibouti dulqaadka aan leenahay dhinac kastaba naga socda hadda dhinac kastaba naga socda dhinac kastaba dad naga faa'iideysanaya magasoon tahay klima xun oo konton dogreeya oo maxaan ku dhahay biyo milix midhana jaad sideed subaxnimo noloo keeno koran li'i والله وبالله وتالله ummadda reer Djibouti waxay ka xun yihiin maanta dhaqaalahooda iyo noloshoodu ay ka xun tahay canjeerada Ethiopia lagu cunayay ya dagaaladii ilaa imika xulbad maraqi iyo canjeeradii engaga ahaa la dhiganayay la engejinayay wallahi noloshoodu inay ka xun tahay xabadii baastada ayay gooyn karin maanta family released their first public statement yesterday about the interview with Oprah, saying that the Queen is saddened and that their claims will be dealt with in private. This crisis has led many to draw comparisons between cabsi kama aha Princess Diana. CNN's Max Foster. dadkan moodaya inay maxay la aamusan yihiin ta un haya war may sara kacaana reer Djibouti ee haya واتلو الله ويان حق الله كسعتا أنا مركان أنا قال بو أنك يسكك عنية إسماعيل عمر ما هو حنا هشتا maanta haddii la rabo in la iska dhabo Ismaaciil oo la tuuro dadkan dareyska sita dambigu kuwaaba ku socdaa awoodda maanta iyaka awood leh oo dhinac iska tuuri kara oo dareemi kara hadday maanta dareem ay leeyihiin walaaltinimo iyo daljacayl ay leeyihiin maanta kuwaaba maanta dhinac iska dhigi kara oo midnimo abuuri kara Suudaanba waxa ka dhacay waad ogtihiin warba dalka marka la badbaadinayay militarigii ee uu xukumay Umar al-Bashir baa qaaday inkastay dhibta iyo ayar dhacday awood maanta ee shacabku uu leeyahay maskaxdiisiiba ma dhisnaa oo maskaxdu nafaqaadka bini aadamka uu cunayo ayay ka mid tahay ninka wadnihiisii hoos ugu dhaadhacsan yahay ee cotton degree afartanka faran ee bas xumbuliga helaynin ee soo lugeynaya balbala ilaa xumbuli soo lugeynaya wadnaha uu leeyahay maanta ma dareemaysiin inninkaan nii dhiibee hooyada dhabarka ku sida ilmaha yar iyadoo saad xalay dhashay ee taksiga balaa taksiga ama baabuur xumburiga heli karaynin ee daaran xanaanka ka iman karaysa ilaa balbala ma dareemaysiin war ummaddu ma noolo nafaqa liiba haysa maskaxduna nafaqay ku socotaa marka dadkan dhalinyartan social media ku jira
مرنا كو عيتمايا مرنا قبيل وضع يا هلا إيو محاكو هاي ور إلهي متقانين يا النبي جيني ورداد إسلام متهين وما نليسو مايو نليس لا ور جيبوتي كان كهالله waxaan nigu hojira baydan imika aad ka baqaysiin baydii ay dhashay baa nigu jira baydii ay dhashay ayaa nigu jira oo ku wada dhashay Soomaali galbeed ku wada dhashay cilmi jaamacad aan ka soo baxay kuwa aniga cilmigoogii aan kaga soo baxoon garanaya waxay yihiin waa walaaladeen waan garanayaa isku dhaqan ma nihin waa ninka kula nool 20 jir ku yimid ama 15 jir ku yimid Djibouti kula noolaa 40 sanadood ayaa geedkii uu ku ciyaarayay Ethiopia iyo saxaabtii Ethiopia ka sheekay 24 saacadood markuu uu weynaado telefoonka markay qabsadaanba dhexdoodii iyo waxay ka sheekeeyaan noloshoodii background-koogii bay ka sheekeeyaan oo kulama joogo ninkaasi diida ama doona dadkan ciisanimo uu ooyaya waa walaaladeen leh ya tawan u soo noqoni Conseil Nationalka shalay dad baa ii soo tuuray وواحد يكون بيدي بلا متورم لباحي بلا ليش كمدلين قلا إيش صار السياسة دولة الديار وأحباب جتبه إن يبديش الديار au Conseil national pour la transition djiboutienne écoulée. Kuwa markan profile koogi aan galay shan baan ka soo saaray reer Ethiopia oo ku dhashay Ethiopia ku dhashay wallahi hadad maskaxdiinu ay socoto ama ay sharakacayso maruntan ku dhaqanaa mise tii horaan dib ugu noqonaa baydii dhashay baa ku dhex jira oo burhaanu waa jooga meesha oo shalay 9kii maxaan ku rahayay surwaal yaro cado buubuuya gashanayay calool balhayno xiisaanka surwaalkuna ka weynaa xiisaankuna maqashoonta ku giijisla surwaal simiis yaro harambeeyana ya gaalada daba ordayay afkan uu ku hadlayay Faransiiska aha lahjadii aksaagii dadkii maqashoon tahay abakootiyeegana maahe waa dadkii darbijiifka haye taksiyada mililig ku meedayay weeyaan burhaanu oo asxaab maanta maqashoon tahay Texas jooga oo Djibouti asala oo fiqayga ah ayaa ninka ay xasuusay picture-kiisa imikaaba la xasuusiyay on arkaya burhaanu picture-kiisa maantaan arkaya oo la xasuusiyay oo warninkii sida aha surwaalka cadaaye buubuugaha la sitay gaalada daba ordayay mililig joogi jiray shimiiska yare harambeega ay cadaaday gashanaan jiray weeyaan ninkan ma garanaysid baa la yiri markaa bay maskaxdeedii ku soo dhacday kaaba ciisow kaabaad nin ka dhigateen kaabaad ciise weyne idhaaha oo dumarkiinnii qurbaha joogay lacagta caruurta la siiyo ka cuna oo kolba diisk u saara diisk mar uu idhaaho ina yaroo timer leh oo laga jeexayo ayaa jiro oo lacag soo gura dee dumarna waa bahayin waa masaakiin
Washington, but not this big in quite some time, of policy and politics. The new president on day 50 today was vice president when the Obama stimulus passed. marka adeer waxa weeyaan anu dumar badan ama dad badan oo ciisa adyarta taabata layga idhi ayaa jiro oo laygu soo cabtay dee adeer ma waxaaba nigu eegaa ma anigoon arkaayo khaladada ilaahay imaba siinin inaan anoo yarba yah markaan qof aan arko khalad samaysanayo tunkun baan qabsanayo daba ordaayo ima abuurin dhaladkaygana ma aha abtiyaal habaryaal waxaan nii sheegayaa khaladka aan arkaayo ku dhicina horaad ugu dhacdeen ood ka bixi leedihiin 40 saacadood qalbigiinnu wuu furan yaho walaal baad soo dhawaysanaysiin ee waraaba niga dambeeya waraabo ayaa niga dambeeya ma garatay waraabaha maalintaad iska goysiin ayay wax nin hagaagayaan waa burhaan oo soodkii ilmaha yar ee tiimeerka ee la ururiyey ee turkiga la geeyey ee uu magashoon tahay tiimeerkii laga soo gooyey ee la soo celiyey ayaa haddana uu ku soo celiyey biis wuu idhi yah oo isagii ayaa imika meel u hoydiyo wuxuu cuno ula war haddii intaa loo qabtay ee ilaahay uu qoray inuu ilmaha yar uu badbaadiyo uu maalintiisa ahayn inuu magarsoon tahay haddana war gacan kaliya ta bariiska la gelinayo jiiraankiisa meel hadduu seexdo uu helo ama reer jabuutigan jaadka waaweynka cunaya haddii looga guro ninka siba la siiyo waa dalkiisii buu joogaa ee adigu biiskani iigu soo celiyadani xaggaabe ayay naga taagan tahay xaggaabay naga taagan tahaye qalbi furnimadu markaad wax kastiba albaabka aad u furtid qof kastiba waa marka aad dhimanaysid markaad cadowgaaga iyo sadiiqaaga aad kala saari leedahay walaalkaa uu ku dhex jiro dib ya ood marka dambaad sare kacaysaa markaa war ninkii carabkaan ka lahaa yah war muxuu sheegayay sootan hadda waxa weeyaan it's too late markaana waa 10 sannadood 15 sannadood ka dambo marka waxaan niga codsanayaa baydan ina cumar tuka daran baa hoostiina ku jirta war hadday dhacdaba oo konsaygani uu hirgalaba anu kuma jireen mana galayana xil waqtina uma hayo noloshayduna dee tanaad arkaysiin weeyaan kowdhe inkastee caafimaadku ilaahay aan ka baryo mar kastiba haddana uma socdo dhalinyar baa meesha joogta eese mid baan odhanayaa dadka marka company-ba hadda iska daa dawlade wax nin maamulaya iska dhaafo markuu company nin qoranayaba ninkani wuxuu yahay ayuu baadi doonaa xaggu ka imiday dalad ma yahay maxaan ku rahaayay kaashiye judiciaire ma leeyahay maxaan ku rahay qurbaha caruur ma ku soo cunay islaan ma soo dilay kowdhaha khamri ma cabayo oo kontuwaar ma hayay taa weeyaan mahmadu
konsey baan galayaa waxaasi ma jire waxa weeyaan waxa la marayaa liin waxa la marayaa baadidoona nin kastiba wuxuu uu yahay baa baadidooni dadkan Ethiopia ku dhashayna adeer Ethiopia way naga weyn tahay walaalada in baatiin ada wanaag ban anigu si wanaagsan baan ila hadlayaa it's time you won't come back finish it's time to wake up meesha aad soo gelina ka sii jooga qolada rabaan ku dhashay kulaha baa uba jiro oo iska cadaysanayo reer rabaan ahay kula oo konseygiina break u ah marka labadu isku de meesha markaliya tamaan iska qaadan hadaan awood leenahay Ethiopia Djibouti ma ba laga dhigaa ama se intan maqashoon tahay ciisho u dego oo dhan ilaa shindiliyo waxay ka dambeeyaba Djibouti la siiyaa marka de waa okay wan ogolaanina aqliga galiya dib aan horay u aragnay dib horay aan u aragnay dib ugu laami kari mayno Ethiopia ha dad ciise way ku nool yihiin of course inay ku nool yihiin way ku nool yihiin ese waday soo marayaan wado mid kasiba wadu soo maraya Hargeysa way diiday hareerahaygi way diiday war ilaahay ka yaaba Hargeysa Puntland buu way diiday iyo wixii ka sokeeyaba iyakii baaba soconaya muujine dad kale oo dibad ka yimiday sidee wax ugu yeelayaan way sii dhibaateynayaan maaha marka nin 40 jir oo geedkii ka sheekeynaya oo ku ciyaarayay ya tema karano anagu xaafadahaygi baa ka sheek abkaba sheekeynaba wallahi ina ka sheekeynba maqlaysid war ciisaan macaayo dadkan khaladka ii haysta adeer dadka khaladka ii haysta aka leexdaan anu ciise macaayo anigu waxaan diidanahay war dal ka weyn oo ka macdan badan oo ka fiican oo ka hawo wanaagsan oo biyo macaan intaba waa la haystaaye maxaa doonida yar ee sii dumaysa maxaa ni tusiyey meesha waa la wada degan yaho ciise cafar adduunyaa wada degane dadka dalka u dhashay ma ku fulan yahay meesha yar ma ku fulan tahay weeyaan anu khalad ay qaadanina character baan ka hadlay character nin kastiba dal kastiba yaan u jeedaa dal kastiba xayawaanka ku nool iyo geedka ilaahay ku nooleyshiiyey iyo dhagaxa iyo ciidda uu ku nooleyshiiyey waa gaar dadka Ethiopia ku nooli dabaayac uu leeyahay waraabuhu uu leeyahay bay leeyihiin diida ama doona waraabuhu dabeecaddu leeyahay soo maadarkin Ethiopia dadka ku nooli iyo geedkiisu waa isku mid annakuna dhagax madow oo maran baan nahay waruntaan isku sheegno ciise aan diidana ciiseeda ay hayaan afka maqashoon tahay aniga xumaanta ay iga doodoonayaan war ka duga ano ciise
ودتكي again فهمه عيسى جيبوتي ودغا او انت بدن بو دغا هذا waan idin ku sheegay isku dhaqan ma aha dad maran oo dhagaxa madow ay maran hawada madow baan nahay waa dad maran baan nahay kuwa Ethiopia oromo aan noqdo ciise aan noqdo wixii deganna waa waraabe karakterka nin kastiba karakter buu leeyahay ilaahay uu dhigay again waa niisu nagu soo celin dal kastiba dhul kastiba geed iyo hawo iyo maqalsoon tahay ciid iyo dhagax iyo ummad gaar uu dhigay karakterka waraabaha Google gala oo dodona ma hina safari Kenya eega sidoo u nool yahay karakterkiisa dodona reer Ethiopia waka waa waraabaha haysta imika Soomaalikiisiin waa kii weyna waraabaha haysta waa kii weyna maka annakoo ka bixin ayaa kuwa kale ay soo galayaan meesha war ilaahay ka yaaba ummadan u dagaaltamaysa ciise caayi yaale war ciise ma caayi karo afkaygan ima samixi karo inaan caayo ciise runtan nii sheegaya ciise un maaha waa afartaa baate waa ciise waa ahmar waa oromo intaasoo dhan ma qaadi karno aniga cafiyo haddana war ciise waa dadkaydii way idhaleen war fahmo wax horta caqligiina yar sare kaco waan la noolaa lahjadan aan ku hadlayo afkan aan ku hadlayo waa af lahjadayadii ciise weeyaan inkastoon soomaaligaygu haddana fasiix weyn u ahayn oo nin عرب عيسى ضلي أيانا هاي والله صور دقمي هو سو كوريين عيسى من عكرو ورعقلي إنك كشقيسية أو سركعة وادي أردن شيء تبصر أنا نرش أن كنا ولا وعروته يرى ماشي جوان شيء جاية وحسوق وقراية بريته لا جردون تين واد أردن تين عرب كي عربكي وحو شيغاي وارون ياد اورندو تبريتو له marka ka leexda taasoo dadkiina eega oo wanaagiina eega oo reer Djibouti baan la hadlaya dhalinyarta reer Djibouti baan ka hadlaya kuwan lagu subtay maaha kuwan magashoon tahay waxay ku dagaaltamayaan iyo wax kala saareen naftoodii haynin kii weynaa waraabihii weynaaba iska ridin inaad haddana kuwa kalaan ayaan ma garanaysaa soo gelinaynaa meesha inaad haddana tiraahiin anigu waa khalad unbay ila tahay effectivement ماشي هدي لا غرانايو نولشا ددك waxa soo riday Djibouti waxa weeyaan قال وحي ka soo riday wala garan waxa ka soo riday anigu badda ma galaayo imika waxaan u galeeyay te waqti uma hayo anu inta yarina ni sheegun baan neegu imiday haddaad wax ka ciisina hadhow talaa kuu macnayna
waxa siday arrintu tahay waa yarka yare xasan reyaale iyo reehe yar iyo muuji whatever ways ma garatay wax ciisanimo anu kama magaca ciisanimo nigama masixi karee oo aad u dhalateene haddana waa waano waxaan isinayaa waa waano waxaan isinayaa عفر يا عرب إيو قدوبوسي إيو إساق إيو عيسى إنت بو ماشا سوها القبيل عروتي يرى عرب ككل جنة سكريني وحي سوها القبيل ما كلا صار يعني حبتي عرب كاي وها القبيل يكي قدوبوسي وها القبيل بروفيسور كاها تضري لو تكسر وحرنا والله الله يعفي يا قبائل كي كلا والله الله يفي ورا يا إلهي بالقانا ورياضة رنتو يسكو شهادة عدوكينو هوشينو كجرابا نيدي أنقنا وعرور يرو وحلوغو سو شبتو دي ميل بقاشينا وحيالو بدن سو قرقر ايو ما قرنايان غوبنيمدا وحي كانه ما قرنايان reer Djibouti un baa keenay gobonimada magaca aad ku dagaaltamaysiin ciise uu ku jiray ciise kama maqnayn uu ku dagaaltamay qabiil kasta ku jiro meesha waa nafta waa loo horay caruur baatiino de waxay uu magaashoon tahay oo ku shubtay dameerkii faruuriyaha waaweyna burdahay ya dameerkaasi dee ani anfaco markay baashu ay xumaatay marka way ku jireen Soomaali badan baa ku jirtay iyo Carabe haddaba xaggan dood kale kama galaye saddexdaa wax baan nii sheegaye war ninka sidaa la iskaga ridi lahaa waxa weeyaan midna soo rido ilaahu iga qabadahay ku kalaan xagga kale ka soo galo diyaar haddaad u tihiin ninka garan aniga dawgaygu waxa weeyaan inaan nii sheego wixii khalad ee maanta ka dhacaya ama se soo socda ama se an experience anigu waqtigayga aan soo maray inaan dawgiisi aan nii sheego ay tahay waa waajib taasi waa waajib taasi ina Umar alla iska rido wixii xeer ah ee la soo marayo ee candidature loo soo marayo waa inuu la baadi doono nin kastaba wuxuu u yahay la baadi doono nin kastiba xaquu ka imiday iyo dhaladkiisa waa in la baadi doono nin kasta oo kursi maanta sidaan u fuulaya no way waa laga daalay haddii dhalinyartan yare ee lagu subanayo haddii kolba siday doonayaan inaan loo qaato ay doonayaan oo dalka meel kale geeyaanna te waxa daba loogu talagalayo ma jiro jaahil weeyaan jaahilnimadii unbay ku jiraan hadda ma qaangaadhbu ma haddaysan tahay ya cuqdad iyo xumaan iyo magac ay meesha ay saaran yihiin oo waxba ay ku helaynin hadday doonayaan تواتي اسماعيل لها وردل وما جوجين إنه تا هذا يسنتهاي أفر قفا عبادة يس دل وما جوجين إذا ولها ويانا دي مع السلامة الرنت اللي يسكو شيء